waxaa ka mid ah allah u naxariistay abwaan cabdullaahi xirsi baarleex oo ku geeriyooday magaalada haydarbaad ee dalka hindiya xukuumadda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka oo magaalada muqdisho ku yeeshay shir looga hadlay howlaha gargaarka ee dalka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta soomaaliya oo amara duldhigtay shirkadaha isgaarsiineed ee ka howlgala waddanka ciidamada ammaanka oo rag la sheegay inay burcad yihiin ku qabtay degmada dayniile ee gobolka banaadir maxkamad ku taala dalka hindiya oo sii deysay dhallinyaro loo haysta inay ka tirsan yihiin al-shabaab xulka kubadda cagta qatar oo markii ugu horraysay taariikhda ku guulaystay koobka aasiya iyo maraykanka oo ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiis uu hore ula galay ruushka war bal ii warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba mar kale habeen wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 1 bisha 2 Febraayo sannadda 2019 warkaasi oo fidsan caawa waxaa la diyaara Farxiyo Xuseen Cali waa maasan tahay Maxamed Cali Maxamed habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii idaacadda kulmiye oo faahfaahsan allah u naxariistay waxaa magaalada Haydarbaad ee dalka Hindiya ku geeriyooday abwaan Cabdullaahi Xirsi Baarleex waxaan ka wareysanay Ilyas Cabdi Cali oo Hargeysa jooga maadsantahay maxamed abwaan cabdilaahi allah u naxariistay abwaan cabdilaahi xirsi baarleex ayaa warbaahintu tabisay in uu maanta ku dhintay magaalada Haydarbaad ee dalka Hindiya abwaankaasi oo xanuun u jiifay oo dowladda federaalka Soomaaliya u dirtay dalkaasi si xaaladiisa caafimaad loogu soo daweeyo halkaasi muddooyinkii u dambeeyayna halkaasi ku sugnaa oo dhakhtar ku jiifay allah u naxariistay abwaanka waxaa lagu xasuustaa kooxdii uu ka tirsanaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee horseed loo odhan jiray oo ka mid ahaa isla markaana uu ka mid ahaa abwaanintii ciidamada ama kooxdaasi horseed maasooyinka ama waxyaabaha uu tirin jiray dadka sugaanyahanada ama fanaaniinta aan la xiriirin noo sheegeen waxa uu caan ku ah maasooyinka nooca loo yaqaan dhaantada ciyaarahaasi oo uu sameyn jiray isla markaana heeso aad caan uga ahaa sagaashameedyadii iyo sideetamaedyadii dalka Soomaaliya ayuu tirin jiray oo dhinaca dhaantada abwaanku waxa uu ahaa maxamed oo qofkaasi waxa sanadihii ugu dambeeyay burburkii Soomaaliya kadib uu ku noolaa magaalada Hargeysa inkastoo xanuunkiisa uu xanuun la joogay haddana waxa uu ka soo muuqanayay maalmihii ugu dambeeyay sanadkii 2018 isagoo ka cabanaya xanuun dhinaca wadnaha isla markaana muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ay laga arkay isagoo dhiig ma tagaya marar badan ayaa xukuumadda Soomaaliland ka cawday intuu Hargeysa joogay oo uu yiri xaaladdeeda caafimaad anigoo Soomaaliland soo halgamay xaaladdeeda caafimaad wax lagama qaban balse waxa uu soo dowlad dhinacaas iyo magaalada Muqdisho oo dowladda federaalka Soomaaliya markii dambe u qaban qaabisay in dalkaasi loo geeyo xaaladiisa caafimaad si loogu soo daweyn lahaa sida ay wararku sheegayaan maanta ayaa xaq u yimiday qofkaasina waa uu ahaa abwaankaas xukuumadda Soomaaliya ayaa hay-adaha samafalka ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku yeesheen shir looga hadlayo howlaha gargaarka dalka iyo Nisturaan Cali ayaa warkan faafahinaya waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan ay iskugu yimaadeen wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha samafalka ee ka howlgala dalka isu imaatinka shirkan u dhaxeeya wasaaradda gargaarka iyo hay'adaha samafalka ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay korortay cabsida laga qabo xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira dalka iyo ka hortagga dhibaatooyinka la xiriira xaaladaha bini'aadanimo inay ka dhacdo dalka Soomaaliya mas'uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya oo shirkan iskugu yeeray dhammaan hay'adaha gargaarka ee ka howlgala dalka ayaa waxay isla garteen labada dhinac sidii loo kordhin lahaa howlaha gargaarka Soomaaliya si loo badbaadiyo nolosha dad badan lagana hortago dhibaato kasta oo ka dhalan karta xaaladaha bini'aadanimo Xamza Saciid Xamza oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii shirkaasi ay uga hadleen wasaaradda gargaarka iyo hay'adaha samafalka shirkan maanta halkan ku qabanay wuxuu ku saabsan yahay xaaladda gargaarka waddanka ka jiro emergency situationka aan isku wacnay hay'adaha samafalka inay shaqo fiican ay qabtaan ee wasaaradda si toos u la shaqeeyaan si arrintan looga hortago mas'uulkana kule hadda marba haddii waa saad ku aragteen PowerPoint-ka ama presentationka ay sameeyeen technical groupka wabiyada Shabeelle iyo
jubba inay qalalayaan marka ma sugi karno ilaa last minute kan waa baaq waa saan ugu hortagi lahayn maxallan waxaan u qaban lahayn marka xaaladda waddanka nala socotaa alxamdulillah horta shaqo fiican ay qabtaan hay-adahan sanadka hore markii compare isku sameeyo dadka waagi hore maxaa yiraahdaa dhibaatada hayso waxay ahaayeen 6.2 milyan hadda waxay soo gaareen 4.2 taasna waa shaqo fiican means waxay u soo dhacday 230 waxaan dadaalaynaa sanadkan hadduu ilaahay yiraahdo maxaa yiraahdaa inaan kordhino maxaa inaan baahida aan yareyno waddanka ka jiro anagoo la wada shaqeynayo hay-adaha samafalka maxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo kulankan ayaa sidoo kale waxaa ku soo aadayaa iyadoo la sheegayo in biyihii webiga Shabeelle ee mariyay degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay isbedeleen kuna dhow yahay inuu qalalo webiga sidoo kale isbedelka ku yimid biyaha webiga Shabeelle ee mara degmada Beledweyne ayaa waxaa cabsi xoogan ka qaba beeraleyda ku nool magaalada Beledweyne. wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya ayaa amar waxa ay dul dhigtay shirkadaha isgaarsiineed ee ka howlgala waddanka. Shamis Xasan Haruun ayaa dhammaystiray warkan. wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa waxa uu amro dul dhigay shirkadaha isgaarsiineed ee ka shaqeeya Soomaaliya kuwaas oo aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya. waxa uu sheegay wasiirku haddii ay dhacdo shirkadaha isgaarsiineed oo ay hore u gaarsiiyeen waraaqaha isdiiwaangelinta inay isdiiwaangeliyaan in wasaaraddu aqoonsan doonto kuwa sharci darro ku jooga waddanka isla markaasina aysan u sii ogolaan doonin inay waddanka ka sii shaqeeyaan. shirkadaha ugu waaweyn dalka oo bixiyo voice ama data iyo hadalka waxyaabahaas ugu waaweyn oo leeyahay mobile network operators waxaan u sheegnay bishan February month kooda gudaheeda cidii aan laysan soo doonanin waxaan u aqoonsanaynaa bishan markay dhamaato inay si sharci darro dalka ugu shaqaysanayso ummadda Soomaaliyeed u sheegi doonaa waxa lagu soo qori doonaa website-ka hay'adda kan wasaaradda maaliyadda iyo kan ITU-da caalamkan in marka waxaan u sheegaynaa dhammaan shirkadaha waaweyn oo voice-ka iyo data-ooyinka bixiya ee la yaqaano oo ayagana is warqadan hore loogu diray hay'addan ugu dirtay wasaaradda maaliyadda ugu dirtay inay soo doontaan ruqsadooda ay qaataan bishan gudahooda marka waxaan ka codsanaynaa shirkadaha laysamadooda waa diyaar fadlan soo doonta laakiin wixii ka dambeeya bishan gudaheeda inaan maartay laysanka loo aqoonsan doonin in shirkadaha in sharci ku shaqeyso labo hadda waxa loo sameeyay mudnaan gaar ayaa la sii shirkadiisa soo shaqeynaa maadaama duruufo adag ay ku shaqeynaa shirkadaha cusub ee hadda dalka soo galaya lamid ma noqon doonaan ama qiimaha laysanka lagu sii kuwii soo shaqeynaa lagu ma sii doon marka waxay galayaan bishan wixii ka dambeeya qaybta galayaan shirkad cusub ay noqonaysaa kow dalka kama sii shaqeyn karto labo waxay noqonaysaa shirkad cusub oo laga rabo shirkadaha cusub wax laga rabo kale marka waxaan leeyahay muddadii waa bishan gudahooda ayagana way ka warqabaan dadka aan la hadlayo warqadii way haystaan marka fadlan sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya ay sanadkan gudihiisa samayn doonto diiwaangelinta simikaadhada laga isticmaalo Soomaaliya loona samayn doono qof walba oo isticmaala simikaadh aqoonsi iyo cadeymo la xiriira qofka qaadanaya simikaadhka taas oo ka duwan qaabka hadda la si diiwaangeliyo isagoona sheegay in hadda ay ka bilaabatay diiwaangelinta simikaadhada qaybo kamid ah dalka gudihiisa in la sameeyo wax la yiraahdo sim card registration in kaararka simkaarada dadka isticmaalaan loo register si loo ogaado yaa ku hadlay qofka muxuu yahay marka qofkii nabadiid ah marka hore ma qaadan karo cid haduu qaadan cidii ay siisay ayaa ka mas'uula telefoon kastana in la dabageli karo oo meesha cid isticmaashay halka lagu isticmaalay in la ogaa karo marka sharciga isgaarsiinta kamid tahay waxyaabaha hay'adda ay fulinaysan kamid tahay waxa hadda in wadnaa in qof kasta oo Soomaaliya muwaadin kasta in loo sameeyo ID oo si loo ogaado qofka marka sim card oo la registerayna inuu maartay Maxamed Faarax in la yiraahdo wax cadeynayo sugnaantaas howlahaas way socdaan marka mana dhici doonto dhawaan in nabadiidka ay isticmaalaan waxaan rabnaa arrimahaasna dhawaan in sim card registrationkaas aan ku xalino arrimahaas arrintan ayaa wasiirku ku sheegay inay sahli karto ama fududeyn karto in qofkii dhibaato ka geysta gudaha waddanka si sahlan gacanta loogu soo dhigi karo. ciidamada ammaanka ayaa rag la sheegay in ay burcad yihiin waxa ay ku qabteen degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiraya. ciidamada booliiska degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxay maanta gacanta ku dhigeen kooxo burcad ah oo dadka shacabka ee degan xaafadda Barwaaqo ee ka tirsan degmada Daynile ee gobolka Banaadir dhac ugu geysanayay. kooxaha ciidamada booliiska ay soo qabteen ayaa waxaa tiradooda la sheegay inay gaarayaan ilaa 4 ruux kuwaasi oo shacabka ka dhacaya waxyaabaha ay wataan oo ay ka mid yihiin telefoonada gacanta lagu qaato
mid ka mid ah dadka deegaanka islamarkaana ka mid ah dadka kooxaha burcadka ay ka qaateen taleefanadooda oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxuu ka warbixiyey kooxaha dhac u geysanayay dadka shacabka ah oo ciidamada ammaanka ay soo qabteen isagoona sheegay in ciidamada booliiska ay dhaawaceen mid ka mid ah kooxihii dadka dhacayay tuugo taleefanada dhacanaga meesha fadhinay derbi fadhinay noo imaadeen waxay istaaga waa istaageen derbiga madax saara waa saarnay marka dambe taleefanada naga qaateen anagoo saas ciidamada amniga ku daba jireen aanoo imaadeen raggii waa la qabtay ragga mid kamid ah iswaalay oo fakamaaday waa la dhaawacay afar ayaan abu afar ciidamada amniga oo booliska oo axdi barwaaqo wallaahi saacad xaafadana habeenkii waa iska socnaa xilligaa rabno raggan ku dhawaad bil ee raadayna deen booliska afar nin ahaayeen ciidamada ammaanka xiran midka oo la dhaawacnay isbitaal la geeyay shacabka muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka nasteen dhaca ay geysanayaan kooxaha burcadka ah maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa waxa ay sii daysay 3 qof oo loo haystay in ay ka tirsanaayeen kooxdii weerarka ka geystay dhismaha Dito Nairobi bartamaha bishii hore. Abdul Kibrinji James Mawangi iyo Xabiiba Geedi Hunshur ayaa xuriyadooda dib u helay markii ay maxkamadu sheegtay in laamaha ammaanka baaritaan kadib ay ku waayeen dambiyadii lagu soo eedeeyay. maxkamadda ayaa cadeysay in qaybta booliiska u qaabilsan la dagaalanka argagixisadu ay xireen gal dacwadeedkii ka yaalay dadka la fasaxay laguna waayay tuhunka ku aadan in ay wax ka ogaayeen weerarkii al-shabaab ay ka geysteen Nairobi. warka habeen ee Keenan ayaad dhageysanaysaan dhageystayaal. wararkii dibadda ayaa inoo harsan. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay iskaga baxayso heshiiskii baabi'inta hubka nukliyeerka ee ridada dhexe kaas oo ay horay u wada galeen dowladda Ruushka. Mareykanku waxa uu sheegay in uu heshiiskaasi iskaga baxayo muddo 6 bilood ah kadib markii uu Ruushku uu ku eedeeyay in ay u hoggaansami waayeen dhaqangelinta heshiiskaasi. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in maamulkiisa uu warqad codsi ah u gudbiyay Ruushka taas oo uu muddo 6 bilood ah kaga baxayo heshiiska INF haddii aysan Ruushku la imaanin qorshe ay ku dhaqangelinayso heshiiskaasi. guud ahaan warkii habeen oo dhageystayaal aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee Muqdisho waa naga inta cid warkeena uu seego raadiyo kulmiye.net ay ka heli kartaa nabadgelyo.